السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشا aan ku jirnay waa bisha October waa bisha caalamka oo dhan la isku dhiirigeliyo badqabka dhimirka. qaybo yar yar ayaan marka doonayaa in arrintaas kaga hadlo. Hadda waxaan ku bilaabayaa hurdada. Qofku inuu seexdo waqti ku filan ugu badnaan 8 saacadood ugu yaraan 6 saacadood waa muhiim. waayo isku buuqa dadka oo ku dhaco ama oo haleelo oo dhan wuxuu ka bilowdaa hurdo la'aan. Stresska ama cadaadis maskaxeedka asagana hurdo la'aan ayuu keenaa. Sidaa la ajligeed haddii aad hagaajiso hurdadaada waxaa hagaagaya dhammaanba caafimaadka dhimirkaaga. Hurdada soo ku hagaajin kartaa marka inaad meel nadiif seexato, inaad adoo nadiif seexato, inaad iska ilowdo buuqa iyo howlaha adduunka ee maalintii ku soo maray, iyo in aad adigoo markaa calooshaada aad u buuxdo oo aan si wanaagsan dareemayn inaad seexan. oo macnaha xilli aad seexanayso iyo xilliga aad wax cunayso ugu yaraan ay u dhaxayso 2 saacadood. in aad seexato meel uu furan yahay aaryo badan ay soo gashay oo maxay ahaytonay oxygen nadiif aad hesho oo qolka aad iska aarayso daaqadaha u furto. adigana inaad mayrato haddii hurdadu ay aad dhib kugu tahana waxaad raadsataa cusbada la yiraahdo Epsom salt oo farmashiyaasha lagu gado iyo meel kasta laga helo. haddii kale wixii kale aad heli karto oo aadan maaragta lagama maarmaan raadso, laakiin adigoo nadiifana inaad seexato calooshaadan ayna aad u buuxin. iskana ilow wixii ku soo